Soo dhawaada saabay ku soo dhawaada Somali Scholars University haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato channelkayga subscribe saar videogana like saar maanta waxaan qaadanaynaa casharkii 11aad ee Business Administration kaasoo noqonaya maareynta istiraatiijiyadeed Strategic Management yoolalka casharka Learning Objectives marka la dhameeyo casharkan ardaygu wuxuu awoodi doonaa inuu sharaxo micnaha iyo muhiimadda maareynta istiraatiijiyadeed faahfaahiyo tallaabooyinka nidaamka istiraatiijiyadeed Strategic Management Process isticmaalo qalabka falanqaynta sida WOT iyo BESTEL kala saaro heerarka istiraatiijiyadaha ganacsiga Corporate Business Functional sharaxo sida loo hirgeliyo Implement iyo loo qiimeeyo Evaluate istiraatiijiyadaha waxaa loola jeedo maareynta istiraatiijiyadeed maareynta istiraatiijiyadeed Strategic Management waa habraac joogto ah oo shirkadu ku qorsheyso ku fuliso kuna qiimeyso go'aanada iyo ficilada muhiimka ah gaarsiinta yool dheer ee ganacsiga waxay ka kooban tahay falanqaynta deegaanka gudaha iyo dibadda samaynta istiraatiijiyad hirgelinta iyo kormeerka natiijooyinka ujeeddada ugu weyn ee maareynta istiraatiijiyadeed waa in shirkadu hesho faa'iido tartan oo waara sustainable competitive advantage iyada oo la adeegsanayo khayraadka iyo awoodaha gaarka ah ee ay leedahay sifooyinka istiraatiijiyadda waa qorshe muddo dheer long term orientation waxay saameyn ku yeelataa dhammaan qaybaha ganacsiga waxayna ku salaysan tahay falanqaynta deegaanka gudaha iyo dibadda waxay u baahan tahay go'aan sare top management involvement waxay leedahay khatar iyo shaki uncertainty sababtoo ah mustaqbalku wuu isbedeli karaa tallaabooyinka nidaamka maareynta istiraatiijiyadeed nidaamka maareynta istiraatiijiyadeed wuxuu ku kooban yahay 5 tallaabo oo isku xidhan kuwaasoo si joogto ah dib loogu eego tallaabada koowaad dejinta aragtida iyo hadafka vision and mission shirkadu waxay marka hore caddaynaysaa ujeeddadeeda guud mission iyo aragtida mustaqbalka ee ay doonayso inay gaarto tallaabada labaad falanqaynta deegaanka environmental analysis tani waxay u kala baxdaa 2 qaybood falanqaynta gudaha khayraadka awoodaha iyo dhaawacyada shirkadda iyo falanqaynta dibadda khataraha suuq tallaabada saddexaad saamaynta istiraatiijiyadda strategy formulation waa marxalad lagu dhisayo qorshayaasha iyo ikhtiyaarada ugu habboon si loo gaaro yoolal iyada oo lagu salaynayo natiijooyinka falanqaynta tallaabada afaraad hirgelinta istiraatiijiyadda strategy implementation halkan waxaa lagu rakibayaa qorshaha si dhab ah oo ay ka mid tahay qaybinta khayraadka dhisidda qaab dhismeedka iyo hogaaminta shaqaalaha